food science marka hore waa cilmiga cuntada waay macnaha nutrition waxaa waaye wuxuu tarkiiskiisa ama diiradda saarayaa inta ugu badan sida macnaha bani aadamka cunto fiican oo heli lahaa cunto caafimaad leh oo heli lahaa macnaha cudurro badan si aysan ugu dhicin caruurta oo kaleenta malnutrition si aysan ugu dhicin undernutrition iyo malnutrition waxaa kala dhaha jirto labadaba aysan dhicin cuntada aysan marna aysan kaa badan ama aysan kugu yaraanin nutritionka wixiisa ugu badan waa intaas oo diiradda saaraya iyo wuxuu sidoo kale diiradda saarayaa nutritionka wuxuu aad diiradda saarayaa cuntada ama maadada ghadaa'iya waxay ka kooban tahay componentskeeda nutritionka صح nutritionka wuxuu diiradda saarayaa cuntada tusaale ahaan waxay ka kooban tahay ay maada ghadaa'iya صح يعني بنسب متفاوتة يمكن الجيران لكن ما دول أو لعنه وحاوي تضبع عناصر أجرت أما لح عناصر أدريكنا وحاوي كربوهيدراتس أيجران فاتس and lipids باجرتا بروتينز أيجرا فيتامينز أيجرا وحاكا لو جرا بيها iyo fiberska waxa loo yaqaan ama alyaafta oo badan laga helo fawaakihda qaybahooda oo qolfaha ah qashrooyinkooda iyo waxaas waxa kale oo jira iyo almalax wal maadin ama minerals kala dhigara maadinta sida calcium potassium waxyaabahaas oo kale macnaha ayagana waxay kala baxaan kuwa aad u jirka u baahan yahay iyo kuwa jirka aad u soo u baahan waxaas oo dhan nutrition bay ka hadlayaan laakiin nutritionka waa intaa kaliya laakiin food science markii la waa cilmu shaamil oo wax walba oo cuntada ku saabsan haddii aan leed cuntada naftarkeeda in la daraasay chemical ahaan physical ahaan everything about the food marka nutritionka ذاته wuxuu noqonayaa farac soo hoosgalaya juz'un la yatajazza min cilm al-aqdiya ama min food science يا سلام sidaa way marka insha Allah ايوه waxyaabaha farqiga u dhaxeeya iyo tacriiftoodii marka nutrition lama dhihi karo food science all about food science wax walba food science and nutrition lama dhihi karo laakiin nutrition food science oo noqon kara ايوه صح 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 اوكي وتاس waxay cabdi qani